waxaan nimid halkii ugu dambeysay nolosha Ubax Maxamed Yaxye. Ubax waxa halkan yaala dharkii ugu dambeeyay oo ay wadatay markii hooyadeed ay ka soo tagtay sida hadda hooyadeed ii sheegtay. halkan waxa yaala waa go'eedii ay hogogneed xaabadii ay guraysay ayaa intaan oo dhan daasan. halkan waxa saaran waa taakadii timaha madaxa ugu jiray labadii kabood oo ay wadatay bartii yaalaan. نسمع روحي حوين نعب خيستهي نبامها روحي هبلها نبرو قيستهي magaalooyinku waa lagu kufsanaa gabdhihii baadiyii waa lagu kufsanaa waxa xagee ku fakadaan waayay gabdhihii السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي معنا وناكسن داوديال halka adiga daawaneysaan waa Asad Jaani official aniguna waa saaxiibka Soomaalida Asad Jaani isku soo noqod wanaagsan oo xiiso leh waxaan filayaa inaad ii xiiso qabtaan sida aan anigu inkugu xiiso qabasay lamida waa hagaag daawadayaal soo dhawaada mar kale waxaan inoo wadaa maanta barnaamij kale muuqaalkan maanta waxa uu ka duwan yahay muuqaaladii kale waana muuqaal murug iyo argagaxiisa wato waxa uu ku saabsan yahay gabar Soomaaliyeed oo la kufsaday kadib la gowracay kadibna la gubay. kufsiga ayaantan Soomaaliya waa ku batay balse waxa bishaaro ah ninkii geystay kufsigaas iyo waliba dilkaas arxan darada ah in gacanta uu ku jiro oo la soo xiray. haddaba arintaas argagaxa leh ayaa waxa ay ka dhacday Caabudwaaq muuqaal laga diyaariyay dhibaatada halka ka dhacday sida ay u dhacday iyo waliba qoyskii dhibaatadu ay gaartay ayaan idin kula wadaagi doonaa barnaamijkan inoo bilaabo. waxay ahayd dhacdo xanuunkeeda wadata oo ugub ku ah degmada Caabudwaaq kiiska kufsiga iyo dilka leh ee maanta hadalhayntiisu ay sida weyn u saameysay dadweynaha ku nool degmada Caabudwaaq waa Allaha u naxariistay marxuumad Ubax Maxamed Yaxye oo ahayd 17 jir marwa ah waxaana ay isu diyaarinaysay dhismaha aqalgalkeeda sida uu ii sheegay saygeeda. waxaa loo mudeysnaa in farxadda dhismaha arooskooda uu dhaco bilowga sanadka soo socda waxaana la sheegay in ay lahayd uur 3 bilooda. qoyska ay ka baxday marxuumad Ubax oo aan tagnay ayaa waxa uu ku yaal waa gabar Ubax ayaa la dhahaa da'deedu 17 jir ay ahayd waa dareemi kartaa 17 jir waa gabar yar oo hadda soo qaan gaartay soo baxday kaliya ma aysan ahayn gabar waxay u dooneed wiil oo lagu isku wada meheriyay waxa ay u lahayd uur balse guurkoodii iyo aqalgalkoodii ma uusan dhicin waxa lagu mudeysnaa inuu dhaco 2020 qadartii Ilaahayna meel ay taalay balse gabadhaasi waxa ay la kulantay marnaba ma aysan ahayn waxa ay u qalanto. qoyska ay ka baxday marxuumad Ubax oo aan tagnay ayaa waxa uu ku yaalaa daafta waqooyi ee degmada waxaana ka jiray dareen murugo leh annagoo la qaybsanayna xanuunka ayaa waxaan la kulannay hooyo Xaliimo Axmed Khaliif waa marxuumadda hooyadeed waxaana ay noo sheegtay in gelinkii dambe ee shalay xaaba ay dab ku shitaan ay ugu dirtay baadiyaha aysanna ka soo nabad noqon. hooyo Xaliimo iyo qaar ka mid ah ehelada oo soo helay meydka marxuumadda subaxnimadii hore ee saaka kadib markii ay raad goob ku sameeyeen waxa ay nageysay goobtii uu falku ka dhacay ayna ka soo heshay meydka gabadheeda. waxaan nimid halkii ugu dambeysay nolosha Ubax Maxamed Yaxye. Ubax waxa halkan yaala dharkii ugu dambeeyay oo ay wadatay markii hooyadeed ay ka soo tagtay sida hadda hooyadeed ii sheegtay. halkan waxa yaala waa go'eedii ay hogogneed xaabadii ay guraysay ayaa intaan oo dhan daasan. halkan waxa saaran waa taakadii timaha madaxa ugu jiray labadii kabood oo ay wadatay bartii yaalaan. waxa kale oo halkan yaala sida ay idin muuqato juwaankii ay ku soo xaaba doonatay iyo surwaalkii. runtii waxay muujinaysaa cadeyntan halkan inaysan gabadhu naf kala tagin ayay muujinaysaa. sidoo kale waxa yaala meeshan dhiigeedii iyo dhacaankeedii ayaa yaala. نسمع روحي حوين نعب خيستهي نبامها روحي هبلها
نبرو قيستاي نعصوين يروحان بسيد ناسكي هو تقيي naftu ku siimaysa inaad muuqaalkan daawatid maxaa yeelay sida gabadhaasi loo galay waa arxan daro waxa hadda nala dulgeeyay waxa waaye halkii lagu gubay waa dharkeedii meesha yaalaan waa indhihiina ayaad ku aragteen kabaheedii meesha yaalaan taakadii tinta ugu xidhan meesha taala reerkeedii waxay u soo dirsadeen xaabo ay badar ku karsadaan mid inkaar qaba hadda wadada u gala oo nafteedii dhaafsiyay midkaas gacanta ayuu ku jiraa sida muuqaalka uu qayb kaga yahay muuqaalka aan daawaday waxaan filayaa sidii oo u gubay ubax in asna loo gubo in la gowraco lana gubo sidaas arxan darada asnaha ku dhinto hana ku tusaale qaataan kuwa arxan laawayaasha ah ee gabdhaheena Soomaaliyeed dhibaatadan u geysanayay kufsiga iyo tacadiga dhibaatada murugta leh oo ay gabdhaheenu qaar la bixi la yihiin barnaamijka u geysanaya waana arin ugub ku ah baadiyaha inay ka dhacdo magaalooyinka ayaa lagu ogaa arintan laakiin haatan waxay gaartay baadiyihi meel harsan ma leh magaalooyinka waa lagu kufsanaa gabdhihi baadiyihi waa lagu kufsanaa waxagee ku fakadaan waayay gabdhihi yaala meeshan dhiigeedii iyo dhacaankeedii ayaa yaala hooyo Xaliimo Axmed Khaliif oo murugaysan ayaa nooga warbixisay iyadoo dul taagan goobtii gabadheeda lagu dilay dareenka gabadha geeri iyo nolol mid baad helaysaa lahaa haye wada geerideedii baanan hel yaa ku helay socdaalkeeda halkan markaa weli odagii sodogeeda soddog wiilka qaba aabaheed baa kula socday markii aad halkan timid see dareenkaagu noqday waxba waxoogaa baan si noqday laakiin hadda iyo markii haddaaban xanuun badan halkaan boo gabadh markii hore midha qof ku qabsaday ka bacdin wata halkaa tagtay rafasha ku tagtay markaa madaxa kula jirta nagaarkeedkaasi ku dheganay maxamed xuseen guuleed oo ahaa aabaha dhalay wiilka qabay gabadhan dhimatay ee marxuumadda ah kuna jiray diyaarinta arooskeeda oo loo mudaysnaa bilowga sanadka soo socda ayaa isna waxa uu nagula hadlay goobta lagu aasay kadib wayna bireysnayd waa gabadhaas wuuna kufsaday gabadhaas sodogeed baana uur bay lahayd hadda la rabay in la arooso waliso aad iyo aad baan isku bedelay shucuurtayda hadda saacadan waa kacsanta xaaladayda amnigayga hadalkayga midna ma saxsana tagay meedkeeda ayadana isku duway meedkeeda mariyeedana cushay waan isku duway waxaan raadiyay oo isku taxallujiyay ninkii inaan baadi goobo raadkiisa meesha yimid waan daba galay waxaan ugu tagay gurigu galay taliyaha saldhigga degmada Cabudwaaq dhamme Farxaan Xuseen Xasan ayaa soo bandhigay eedaysanihii ka dambeeyay dilka iyo kufsiga gabadha marxuumadda ah oo ay laamaha ammaanku maanta soo qabteen bismillaahir rahmaanir rahiim nin la tuhunsanaa oo lagu eedeynayo dil gabar xaabad doonatay oo banaanka magaalada uga baxday muddo ilaa iyo saaka aan ku daba joognay oo raadkiisa aan qaadnay oo go'isii iyo kabihiisii iyo gurigu galay iyo ilaa iyo meeshuu deganaa waan gacanta ku soo dhignay waxaan ku helay go'aas gadaashiina ka muuqdo waa go'i uu xalay huwaday kabihii uu watay oo uu tuuray raadkii badnaa oo uu iska daba wareegay gurigii hooyadiisa uu galay markuu ka baxay meesha gabadha uu ku kufsaday raadkii aan ka qaadnay guriga hooyadiisu galay saa u daba joognay dusha koru aaday ilaa adigu ilaa markii dambe ilaahay mahadiis waxa ku soo guulaysan inaan qabano magaalada dhexdeeda laga soo waayo ninkaas aragteen waaye ninkii gabadhaas kufsaday walaasheena baadiyu horta magaalada waxay kaga roon tahay qofka ku socdo raadkiisa macnaha dadka ku yar raad walba aan leedahay waa laga daba imaanaa ma qarsoomaysid waa lagu soo daba kacaa meesha gashid aa laga soo dabagelaa kabaha ninkii lahayo meeshan soo gala sheega ma qarsoomi karo ilaahay xamdigiisu waaye waxaan filayaa in gabadhaasi dhibaatada u geystay 24 saacadood ilaahay ka soo muujiyo oo gacanta lagu soo dhigay waxaan rajeynayaa inuusan 24 saacadood kala sii noolaan si degdeg ah loo dhadhansiiyo xanuunka oo dhadhansiiyo ubax waliba ubax kaliya maahan ubax iyo waliba ubadkeeda caloosha ku jiray ayuu adduunka dhaafsiiyay kaasoo kale maba ahan inuu noolaado waa in la dhadhansiiyaa dhibaatada uu dhadhansiiyay walaasheen ubax waxaan filayaa in cadaaladda ay heli doonto ubax waad ku mahadsantahay sidaad u daawatay muuqaalkan qiirada leh
muuqaalkan muuqaalka xigta ku kulmayno waa saaxiibka Soomaalida Asjaana oo idin leh nooli kulantay